رئيسل وزراء حكومة فدرالك الصومالية مدن محمد حسين روبلي وهليو مدحوينها قلمدوق أحمد عبدي كارية قورقور ayaa waxa ay xalay isbitaalka ku booqdeen askar iyo walbareed ku soo dhaawacmay weerarkii ay shalay dagaalmayaasha al-shabaab ku qaadeen deegaanka Wasiil ee ka tirsan gobolka Mudug. Ra'iisul wasaaraha ayaa waxa uu isdul taagay dhaawacyada isagoona dhaqaatiirta ka dhageysay warbixin la xiriirta isagoona u rajeeyay caafimaad degdeg ah waxaana u mahadceliyay sida geesinimada leh ay isaga caabiyeen weerarkii ka yimid danka dagaalmayaasha al-shabaab. رئيسل وزراء روبلي ayaa waxa kormeerkani ku wehelinayay madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo waliba taliska booliska gobolka Banaadir iyo xubno ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble. Ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha galmudug ayaa waxay si adag u cambaarayeen weerarka lagu soo qaaday deegaanka Wasiil ee ka tirsan gobolka Mudug. War-saxaafadeed ay soo saartay xukuumadda Soomaaliya horaan ay kaga hadashay dagaalka ka dhacay deegaanka Wasiil waxaana ay sheegtay in shacabka degmada Wasiil iyo waliba maamulka degmada ay iska kaashadeen weerarkii kaga yimid danka al-shabaab ayaa aroornimadii hore ee shalay waxa ay weerar ku qaadeen deegaanka Wasiil ee ka tirsan gobolka Mudug waxaana dagaalkaasi ka dhashay khasaare kala duwan oo naf iyo maalba leh. Aadan Cali Axmed VOS TV magaalada Muqdisho.